kusoo dhowaada Maine Public News Connect, wararkii toddobaadlaha oo idinka imanaya idaacadda dadweynaha Maine oo ku baxaya afafka Isbaanishka, Faransiiska, Bortugiiska, Soomaaliga iyo af Ingiriiska. Bismillaahi raxmaani raxiim. Shaqaale yaraan sharciyada qoryaha xeerka mushaharka ugu yara la siiyo shaqaalaha, koox cusub oo kubadda cagta iyo maxkamadda socdaalka ah oo iyadana cusub. asalaamu calaykum daawadayaal, maanta waa maalin jimcaha 3 bisha Maaj oo waxaan halkan idinku soo gudbinaynaa qodobadii wararka ugu muhiimsanaa toddobaadkan idinla socodsiinaya anigoo Maxamed Xasan. haddana kusoo dhowaada wararkii oo faahfaahsan. Shaqaale yaraan Maine ayaa waxay hoos uga dhacday yoolkeedii ah in la kordhiyo shaqaalaha cusub ee lagu soo biirinayo gobolka. Maine waxa ay shaqada ku biirisay 13,400 oo shaqaalaha 3 sane lasoo dhaafay, taasoo iyada ka hooseysa xawligii loo baahnaa inay ku socoto si loo gaaro yoolkii ahaa 75,000 oo qof oo dheeraad ah in lagu daro dhammaadka 10 sano. Madaxda gobolka ayaa sheegtay in shaqaalaha Maine ay yihiin qaar ka mid ah kuwa ugu da'da waaweyn waddanka, taasina ay keentay inay waqtiyo badan ay dhaahdeen inay shaqada ka fadhiistaan. Haddaba 10,000 oo deganayaal cusub ayaa ku soo guuray gobolkan Maine xilligii ay jirtay musiibadii COVID-19, laakiin haddaba saraakiisha gobolku waxay sheegeen inayna caddayn inay sii socon doonto isbeddelka cusubi. Qaar ka mid a ganacsiyada iyo dhaqaale-yahanada Maine ayaa iyagu waxay sheegeen hal dariiqo oo wax looga qaban karo shaqaale la'aantu inay tahay in la soo dhoweeyo dadka cusub ee waddanka usoo guuraya. Xeerarka qoryaha. Guddoomiyaha gobolka oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga Janet Mills ayaa iyadu waxay ogolaan doontaa iyadoo aan saxiixin inuu meel maro xeerka 3 maalmood la sugayo intuu qofku uusan qoriga iibsan. Taageerayaasha ayaa waxay sheegeen in ay arrintani gacan ka geysan karto ka hortagga istilitaanka, laakiin haddaba kooxaha u dooda xuquuqda hub haysashadu ayaa waxay iyagu ku hanjabeen in ay arrintan iyada si sharci ah uga hortegi doonaan. Guddoomiye Mills waxa ay diiday xeer kale oo isagu mamnuuci lahaa aaladaha qaarkood, kuwaasoo qoryaha qaarkood ka dhigaya inay si darandoori oo xawliga ka badan sidii caadiga ahayd ay u dhacaan. Guddoomiye waxa ay sheegtay in sharcigani uu u qoran yahay ay tahay mid iyadu baahsan, laakiin ay taageersan tahay sharciga ayaa inuu sheegayo inay muhiim tahay in haddaba diiradda la saaro khatarta uu leeyahay hubku. Sharci dejiyeyaashu waxa ay ka fiirsadeen bali dhowr sharci oo iyagu hubka ku saabsan kadib toogasho wadareedkii ka dhacday magaalada Lewiston dayrtii lasoo dhaafay. Xeerka lacagta ugu yar ee lagu bixiyo beeraleyda. Guddoomiyaha Mills ayaa sidoo kale waxay usbuucii hore iyaduna diiday sharci dejin taasoo iyadu u yeeli lahayd mushaharka ugu yar ee la siin karo shaqaalaha beeraleyda gobolka. Soo jeedintan waxa ay sanadkan keentay waxaa sanadkan aan idhaahdee soo gudbisay Mills lafteeda kadib markii ay diiday hindise kan lamid ah sanadkii hore. Balse guddoomiyaha ayaa waxay sheegtay in ay wax ka beddel ku sameeyeen xeer dejiyeyaashu sharcigeedii, taasoo iyada ku khasabtay inay diido. Nuqulkan wax laga beddelay wuxuu u oggolaanayaa shaqaaluhu in ay dacweeyaan dadka ay u shaqeeyaan, taasoo iyadu ay sheegtay inay khatar ku tahay wax soo saarka gobolka. Dooda shaqaalaha ayaa sheegay inay aad uga xumaadeen diidmada qayaxan ee guddoomiyaha. Koox cusub oo kubadda cagta ah. Kooxdii ugu horreysay ee kubadda cagta oo Maine laga bilaabo ayaa waxay ka dhalan doontaa ama laga bilaabi doonaa magaalada Portland sanadka soo socda. Toddobaadkii hore kooxdu waxa ay soo bandhigtay magaceeda kaasoo ah Portland Hearts of Pine, taasoo ay ka tixraacday geedka gobolka Maine. Bisha Sebtembar ee lasoo dhaafay, United Soccer League ayaa wuxuu ku dhawaaqay in Portland ay hoy u noqon doonto koox cusub oo League One ka tirsan. Kooxdan Portland waxay ku biiri doontaa 12 naadi oo iyagu horeba uga tirsanaa horyaalkaas, kuwaas oo ay ka kala yimaadaan gobollada Colorado, Wisconsin iyo gobollo kale. Haddaba la filayaa in deertan la qabso tartano lagu xulanayo ciyaartoyga, iyadoo ciyaaraha ugu horreeyana la filayo inay guga 2025 ay dhici doonaan. Kooxda ayaa tartanadeeda ku qaban doonta garoonka Fitzpatrick oo magaalada Portland ku yaala. Maxkamad cusub oo socdaalka ah. Haddii aad ku nooshahay gobolkan Maine oo aad kiis ka haysato maxkamadda socdaalka ee Boston,
waxay u badan tahay in kiiskaaga loo wareejin doono maxkamadda socdaalka cusub ee laga furay Chelmsford, Massachusetts. taasi waa sida uu qabo mashruuca u doodista sharciga socdaallada ee magaalada oo magacooda loo soo gaabiyo inadee ILAP. ururku waxa uu ku dhiirigelinayaa in qof kasta oo kiis u yaallo magaalada Boston oo kiis socdaal ah uu isagu ka xaqiijiyo goobta uu dacwadiisa ama kiiskiisu ka dhici doono mareegta ama website-ka maxkamadda. waxaa sidoo kale aad ka heli kartaa macluumaad dheeraada adigoo wacaya maxkamadda oo lambarkeedu yahay 978-497-900. lambarkaan idinku celiyey waa 978-497-900. waa lambarka maxkamadda socdaalka ee Boston. markaad nagala socoteenna waa Maine Public News Connect. intaas iyo sarag dambe waad mahadsantiin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan u mahadcelinaynaa saaxiibadayada bulshada ee naga caawiyey soo saarista barnaamijkan. Maine Public News Connect waxaa suurageliyey shakhsiyaadka iyo hay-adaha taageera oo ka kala yimid dhammaan dhinacyada Maine iyo weliba Koo iyo Patricia Ewan, Seaport Credit Union, Hannaford Supermarkets, Maine Housing iyo IDEX. Maine Public News Connect waxaa suurageliyey Patricia Ewan oo ku howlan soo dhoweynta bulshooyinka iyo dhaqamada kala duwan. Juntos. Ensemble. Warajir. Junto. Seaport Credit Union. Together. suuqa Hannaford wuxuu u dabaaldegayaa shaqaalahooda iyo macaamiishooda oo ah dad kala duwan iyo dhammaan bulshooyinka. waxaa suuqa ka go'an inay abuuraan goob soo dhoweyn si wada jir ahna waa meel ka sii weyn suuq. si aad wax badan u ogaato booqo hannaford.com. haddii aanu nahay Maine Housing waxaan ogsoonahay in lahaanshaha guryuhu ay yihiin furaha horumarka. barnaamijkayaga iibsiga guriga ugu horeeya waxa uu leeyahay deyn dulsaar hooseeya leh iyo kaalmo lacagta horumariska ah ee guryaha qolalka badan leh. faahfaahin dheeraad ah ka ogow mainehousing.org. haddii lagaa gooyey caymiska caafimaadka ama noloshaada uu ku yimid isbeddel weyn, waxaad heli kartaa kaalmaad iskaga bixiso caymiska caafimaadka adigoo booqanaya coverme.gov. waxyaalo badan ayaa iska beddelay MaineCare. ka warhay si aad caymiskaaga u ilaashato oo warbixintaadii ugu dambaysay ku qor maineconnection.gov. shaqo wanaagsan baa halkan laga helaa. barnaamijka Maine Apprenticeship Program waxay ku siinayaan shaqo ku tababar lacag lagugu siinayo. wixii faahfaahin dheeraada kala xiriir maine.gov/apprenticeship.